kororka dhalinyarada tahriibeysa ayaa loo arkaa inay keentay shaqo la'aan baahsan oo ka jirta dalka. Arrintan waxaa maroogu ah daraasad ay samaysay hay'adda UNDP ayaa waxay ku sheegtay in tirada dhalinyarada shaqo la'aanta ah ee ku nool Somaliland, Puntland, Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya ay gaadhayso 47%, taasoo macnaheedu ay tahay in 10kii dhalinyaro ahba 7 ka midihii ay shaqo la'aan yihiin. shaqalaantaasi waxaa barbar socda iyadoo arday badani ay sanad walba ka qalin jebiyaan jaamacadaha iyo dugsiyada sare waxaana ay ku biiraan liiska dhalinyarada shaqadoonka. amuurtanna waa mid ka mid ah sababaha niyadjabka ku keena dhalinyarada. hay'adda shaqadoon iyada oo qodobkan iyo taageerayaal badan oo la xidhiidha maanka ku haysta waxa ay sameeyeen barnaamij shaqo loogu abuurayo dhalinyarada waxaana laga hirgeliyey barnaamijkaasi magaalooyinka Hargeysa, Boosaaso, Beledweyne, Muqdisho iyo Kismaayo. maxamed cabdi oo ka tirsan saraakiisha hay'adda shaqadoon ayaa sharaxaya qaabka ay dhalinyaradan shaqada ugu abuureen. mashruuca Youth Enterprise Initiative waa mashruuca iska kaashadeen hay'adda shaqadoon iyo financial institutions ka Islamic Microfinance Services iyo Microdahab oo ka mid ah Dahabshiil Bank. mashruuca hadafkiisa ugu weyn wuxuu ahaa sidii loo kobcin lahaa ganacsiga ama hal abuurka ganacsiga dhalinyarta. mashruucaas oo ka shaqeynayay 5 magaalo oo ku yaala Somaliland iyo Puntland iyo South Central Soomaaliya oo kala Hargeysa, Boosaaso, Muqdisho, Kismaayo iyo Beledweyne. mashruucu wuxuu hadafkiisu ahaa inuu kobciyo ama abuuro ganacsiyada dhexdhexe ama ganacsiyada ka waaweyn ganacsiyada yar oo ay dhalinyartu ka abuuraan magaalooyinka uu ka shaqeynay project ama mashruucu ka shaqeynay iyadoo la siinayo dhalinyarta kobcin xagga aqoonta, kor u qaadid xagga xirfadaha la xiriira ganacsi abuurka iyo sidoo kale iyadoo loo fududeynayo dhalinyartu inay helaan capital ama funding ay ku bilaabaan ama ay ku kobciyaan ganacsiyadooda. tirada dhalinyaradii hanka ganacsi lahayd ee soo xareysay codsiyada maalgelinta shaqo abuurku waxay ka koobnaayeen ku dhawaad qiyaas ahaan 900 oo dhalinyaro ah kuwaasi oo sidii loo xil saaray kala saaridda fikradaha ganacsi ee dhalinyaradu ay soo bandhigeen ay kala soo baxeen 120 ugu fikradaha wanaagsan ah oo ay ka soo xusheen magaalooyinka Muqdisho, Hargeysa, Boosaaso, Beledweyne iyo Kismaayo. intaasi kadib si loo kobciyo garaadkooda iyo xirfadahooda ganacsi waxay mas'uuliyiinta hay'adda shaqadoon u fureen tababar xirfadahooda ganacsi kor loogu qaadayo. markii ay dhalinyaradu ay dhameysteen tababarkaas oo in muddo socday waxay xubnihii shaqo abuurka loo sameeyay dhalinyarada inay hortageen gudidii kala saarista xubnaha shaqadoonka u tartamayay kuwaas oo xubin walba ay gudida u soo bandhigtay xirfadeeda aqooneed ee ganacsi. ka hor intii aanay hortagin dhalinyaradu gudiga kala saaraysay tartamayaasha waxay cabireen rajada ay ka qabaan tartanka. waxaan rajaynayaa insha Allah guul aniga iyo asxaabtayda inaan ku soo baxo iyo intii kale ku soo bixina insha Allah inay wax kale bedel fiican. tartanka maanta waxaan ka rajaynayaa rajadii aad u badan ka qaba horta runtii tiradeedu way kooban tahay tirada la qaadanayana way kooban tahay laakiin marnaba guul darre kama rajaynayo waayo waxaan ku soo guuleystay inaan halkaas soo gaaro. tartanka waxaan ka rajaynayaa inaan ku guuleysto oo aan helo fankii aan soo codsaday si aan u gaaro himiladayda oo ahayd inaan helo ganacsi aniga gaar aan u leeyahay oo aan xor u ahay inaan maamusho. waxaan ka rajaynayaa inuu guul ku dhamaado oo aan ka mid noqdo dadka ku guuleysta. horta qof walba waxa uu qaadanaya waa calafkiisa kii ku soo bixi doona waxa ugu soo baxay waa nasiib iyo calaf marka insha Allah waxaan rajaynayaa nasiibku inuu ila jiro. kadib markii si hufan loo kala saaray waxaa ku guuleystay tartankaasi 36 dhalinyaro ah oo ku nool magaalooyinka kala duwan waxaana dhalinyaradaas ay cabireen guulaha ay ka gaadheen ganacsi abuurkooda. runtii horta wallahi maanta dareenkaygu aad baan ugu faraxsanahay in aanu hawshii aanu soo galay iyo maxay tolay barnaamijkii aanu intaas u dhan soo wadnay aanu ku guuleysano oo aan noqono 7 qof ee guuleystayaasha ahaa. oo maanta nahay dadkii guuleystay aan ka mid ahay aniga Cabdinaasir waxaan farxad weyn bay tahay waxaan marka koobaad u mahad celinayaa Ilaahay mar labaadna runtii shaqadoon
iyo Insight Solution iyo Kimis oo runtii aad hawshan isku taxaluujiyay ayaan aad ugu mahadcelinayaa. Waa u faraxsanahay hawsha hadda aan ku dhaqaaqi doono waa hawl mas'uuliyad ah. qof mas'uul noqdo xil qaadana muxuu qaadaa eedu qaadaa. waxaan rajaynayaa markii Ilaahay la garab galo barnaamijkana uu igu guuleysto horena aan u socdo waligeena waxaan ku fikiri jiray inaan hawl aniga aan leeyahay aan rangareeyo socodsiyo ka shaqeeyo maantay qayb kamid ah way rumowday waxaana dhiman qaybtii practicalka ah implementationka ah oo actiga ah ficilka ah waxaan rajaynayaa inuu Ilaahay i fududeeyo aad u mahadsantihiin today waxa waaye aad u faraxsanahay maadaama kamid ahay guuleystayaasha and aad waxaan ugu sii farxay marka projectigayga la soo sheegay boqorada so aad ka si fiican marka waa maqli doontiin xayeysiinteen all that mar dhow maadaama lacagii nal siin doono hadda aad hamigeen u weeyahay inaan ku soo guuleysano waxaan naga saaciday ururka shaqadoon oo run ahaantii waqtigoodii iyo noo huray waqti iyo maalba nagu huray si aan macnaha aan ugu tababarnay barnaamijkan waxaa kaloo garab naga siiyay micro dahab oo iyaduna noo keentay jaaniskan fursaddan aan kaga faa'iideysanayno markii lagu dhawaaqay magacyada tartamayaasha ku guuleystay ganacsi abuurka waxaa halkaasi goobjoog ka ahaa xubno ka socday maalgashadayaasha Kimis iyo micro dahab waxayd in lagu maalgeliyo dadka dhalinyarada ah ee haya fikrado ganacsi oo cusub mashruuca roolka ay ku lahayd ama doorka aan anagu ku lahayn Kimis ahaan waxay ahayd inaanu qaybta maalgelinta ayay ahayd waxaa jirtay ilaa 200 qof oo magaalada Hargeysa oo qura codsiyo soo qortay maalgelina ugu dambeyntiina 20 iyadoo si cadaalad loo kala saaro la raacay hab loo dhigay 20 qof baa soo baxay 20 qof aan markaa anagu u dirnay training shaqadoon oo 4 ilaa 6 bilood lagu barayay sidii ganacsiga loo maamulo ugu dambeyntiina 7 qof baa ku guuleystay inay noqdaan fikradahoodii ay noqdaan fikrado shaqeynaya la qaatay barnaamijkan Somali Youth Enterprise Initiative wuxuu ka bilaabmay guud ahaan waddanka wuxuu ahaa mashruuc 2 sano soconayay micro dahab iyo waxa ka wada shaqeynayay shaqadoon iyo Somali Stability Fund ama SSF ay ka wada shaqeynayay waxaanu ku taageernay dhalinyaro runtii aad u tiro badan micro dahab waxay dhalinyarada aanu qaabilsaneen inaanu yacni fund ka bixino maadaama bank nahay dabeeto dhalinyaradii dabagalo talooyin siino wixii tababar ay u baahan yihiin siino qofka dhalinyarada مثلا yacni aan khibrad hore ka sii haysan kulli waxa ku soo baxaya waxyaabo badan oo nu filanaynin waxaan runtii si joogto ah uga wada xidhiidhnaa dhalinyarada sidii caqabadaha yacni xagga ganacsiga ama shaqadooda ka qabsanaya ee soo waajaha aan wax uga qaban lahayn tartankaasi ay ku kulmeen dhalinyarada aadka u badan ee ka socday gobolada kala duwan isla markaana gaadhayay 900 ee dhalinyaro waxa dhalinyaradii ku guuleystay ee soo baxay isla markaana helay fikradihii ganacsi abuur ee ugu wanaagsanaa waxay soo bandhigeen waxyaabihii u suurtageliyay inay ku guuleystaan guulaha ballaaran ee ay gaadheen marka laga tago fikirkayga iyo qorshayaasha aan soo qortay haddana aqoon baa la geliyay tababar baan soo qaatay hana qoto habka loo qanacsado hana qoto habka qorshahan loo qorto waxa soo dhan waa la iga caawiyay dad bay garab taagnaa shaqadoon runtii aad iyo aad bay noo caawisay aniga iyo intii la faacahaydba inaan hawshan ku guuleysano waxaan inaga caawisan waxa inaan qorshe la taaban karo oo la fahmi karo oo aan ku tartami karno suuqa dhexdiisa aan soo qoran nidaamkaas iyo tababarkii habka ganacsiga loo abuuranayo aqoonta aan faa'iidnay awgeed ayaan isleeyahay ama ku gaadhay guushan marxaladihii ay soo martay bilicsamay aluminium service marka koobaad waxay ahayd maalmaha ka mid ah aniga oo aan ka warqabinba ayaa waxaan si lama filaan u tegay xafiiska ka ama ka Islamic Microfinance Service aniga oo socda ujeedadeedana ahayd fikirkayga ganacsi si aan maalgelin ugu helo anoo raadinaya amaha ama lacagaha maalgelinta ay bixiyaan ayaa maalinta waxaan la kulmay in la ii sheego la yiraahdo maanta waxa la xayeysiinaya mashruuc qiimihiisu yahay 5,000 ilaa 25,000 kaasoo lagu maalgelinayo dhalinyarada
nasiib wanaag maalinta aan joogo isla maalinta galabnimada 5 galabnimo ayuu xidhmaya la sheegay foomkii baan soo qaatay warqadihii la buuxinayay aan ka codsaday qolada shaqaalaha meesha joogtay oo ay siiyeen waxaan ka war helay hawshan cidda wada inay tahay shaqadoon iyo qoladan maalgelinta bixiya ee ka waxaan isla markiiba ka gaarsiiyey inaan codsigayga qoro oo ka gaarsiiyo kaasoo ahaa codsi yar oo kooban oo lagu sheegay ama fikrad ganacsi uun inaan soo gudbiyo fikradeedii markaan sitay oo ahayd ganacsigan aynu maanta ku guda jirno ayaan gudbiyey muddo yar ka bacdi waa la soo jawaabo waxa la sheegay inaan ku guuleystay muddo 3 bilood ilaa 2 biloodna aan u diyaar garoobay inaan tababar galo tababarkii baan galay ku saabsan ganacsiga oo ay fulinaysay hay'adda shaqadoon tababarkaas oo socday 2 bilood 2 bilood markaan tababarkii soo qaadanay waxyaabaha aan ku baranay waxa kamid ahaa ganacsiga qaabka loo maamulo iyo sida loo soo qorto qorshe ganacsi markii tababarku noo dhamaaday waxaan la diray inaan soo qoro qorshe ganacsi markii aan soo qoray mar labaad haddana waxa la igu soo warceliyay inaan qorshe ganacsi uu meel fiican marayo isla markaana aan tartan u soo baxay anagoo koox koobana si aan tartanka u soo bandhigno fikirkaygii banal ayaa soo fadhiistay xaflad ayaa lagu qabtay barnaamij baa lagu qabtay Mansoor oo ka qayb galay anigoo fikirkaygii iyo qorshahayga aan soo qorsheeyay jeedinaya halkaas horta la igu soo doortay mar labaad haddana inaan u soo baxo marxaladii maalgelinta oo aan soo gaaro marxaladii dadana mar labaad haddana qorshahaygii iyo hawshii la iga baahnaa aan gudbiyo dadana sida ay igu soo gaadhay maalgelinta oo aan bilaabo dadana ganacsigan guushiida saldhig waxaan dhihi karaa waxaan u noqday in badan anigoo dadaal badan la sameeyay nasiibna aan macnaha dee wax walba nasiibkayga noqday in barnaamijkaas aan ku guuleysto marxaladii ugu horeysay aan soo marnay marka hore codsigan waxaan u geysanay micro dahab dan waxaan la siiyay course ama 2 bilood oo waxay tahay training ah oo aan ku tababarayo sidaan u diyaarsan lahayn business plan keeni kadib waxaan 2 bilood kadib markaas baan waxaan diyaarinay oo macnaha naga garab galay ama naga caawiyay inaan diyaarino business plan keena ururka la yiraahdo shaqadoon ka dambowna saasan barnaamij ugu guuleysanay dheefta ugu weyn aan ka helay mashruuca kan waxa weeye anigoo in badan baahiyahaygii ay macnaha aan gaaray oo ay ii fuleen iyo rajadii aan lahaa oo aan businesskaygii aan expanding ku sameeyay oo aan bilaariyay oo waxyaalo badan oo ka dhimnaa aan in badan ku soo kordhiyay guusha alxamdulillah ilaahay baa horta guusha haya laakiin bilaadan ahaan waxaan is leeyahay waxa horumar baad samaysay yoolkaygiina weli maanan gaarin oo furahaygu waa inaan yoolkayga oo ganacsi badan sameeyo insha Allah taala saamaynta dhaqaale oo keenay waxa waaye in ma garanaysaa horumar badan aan sameeyo inaan haddii alla ku sameeyo goliga dukaan u dhow aan maalgeliyay oo asna darisila ah in ay ka faa'iideysteen dad awal maxay tahay dhalinyaro baaga moodo ahayd oo ilaa 4 dhalinyaro aan maalgeliyay oo aan shaqaalaysiiyay oo hadda ay shaqeeyaan wax badan baa laga faa'iiday waxaan ku gaaray juhdi iyo dadaal balaaran oo aniga aan sameeyay ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu ila garab galay oo aan muddo dheer soo waday waqti aan soo geliyay juhdi dadaalna aan u galay taas ayaan ilaahay ka soo ku gaaray inaan guushan gaaro dheefta kalento aan helay barnaamijkan aan ka helay ilaahay baa mahad iskale waxay ahayd inaan helay maalgelintii aan raadinayay juhdiga iyo dadaalka iyo waqtiga dheer aan geliyay inaan helay taasoo ganacsiga ku kobci karo kuna ballaari karo yani wax badan ii suura gelinaya xaqiiqatan maadaama barnaamijkan uu muhiim aniga yahay marka laba dheef ayaan ka helay aniga waa dheef aqooneed iyo dheef maalgelinada oo wixii aan raadinayay saameyn dhaqaale oo positive ayuu kan ijaabi ah oo yani inuu ganacsigii kobco inuu ballaarto inaan aniga fursado shaqo dad kale u abuuri karo aan dhalinyaro shaqaalayn karo yani aniga aan noloshaydii iyo bayskii shalay aan joogay aan ka soo kacay marka waxaan isleeyahay yani saameyn dhaqaale oo dhanka positive-ka wanaagsan yani ayaan ka faa'iiday oo aan ka helay magacaygu waa Shukri Cali Mire waxaan ka mid ahaa dhalinyarada ku guuleysatay mashruuca shaqo abuurka ee noo qabanaysay shaqadoon organization iyo micro dahab anakoo qaadanay macnaha training ee noo qabatay shaqadoon organization oo aad iyo aad ugu mahad celinayno koo macnaha uguna faa'iideysanay in mashruucana loo fuliyo faa'iidada ugu weyn ee mashruucan aan ka helay waxay noqonaysaa in anaga aan noqono horta dad marka hore shaqo abuura oo shaqo samaysan karo
uguna faa'iideeyay bulshada inteeda kaleeto oo xirfadleyda nala midka ah inay helaan macnaha fursad aan ka siino macnaha shaqooyin annaka aan soo bandhigno kaleeto ee nooga faa'iideystaan annakana fikradooda aan qaadano iyaguna ay macnaha noogu faa'iideeyaan